munaasabad si weyn loo soo agaasimay ayaa magaalada Muqdisho loogu sameeyay aqoonyahan Siidow Xaaji Maye oo dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya ku soo dhameystay heerka labaad ee jaamacadda. Munaasabadan dhiirigelinta iyo soo dhaweynta isugu jirtay waxaa ka soo qayb galay xubno miisaan leh oo ka tirsan dowladda, mas'uuliyiin magac ku leh xarumaha waxbarashada dalka, aqoon-yahano iyo marti sharaf kale. Mas'uuliyiintii iyo aqoon-yahanadii goobta ka hadlay ayaa si wada jir ah ugu boogaadiyay guusha weyn ee uu soo hoyay aqoon-yahan Siidow Xaaji Maye. Waxay tilmaameen in cilmiga maktabadaha iyo maareynta macluumaadku uu yahay tiir laf dhabar u ah hay-adaha dowladda iyo kuwa waxbarashada si loo qaabeeyo, loo kaydiyo, loona badbaadiyo taariikhda iyo aqoonta dalka. waxaan aaminsanahay shakhsi wax ku ool inuu yahay waliba majaalkan hadda waa uu hadda soo bartay majaal aad naadir u ah Soomaalida xaggeeda waaye. haddii si fiican loo maalgeliyo ama muxuu ahaa laga faa'iideysto wax badan buu ustaadka haya. intuu hadda meeshaan ka sheegi doona oo ka badan oo kaydsan ayuu hayaa. run ahaantii aadaan uga mahadcelinaynaa sidoo marka anaga si gaar ah uga faa'iideysto doona reer Sheekh Suufi inuu tadriibaad nasiyo iyada aqoon kala gaar ah ina library wax kala soo baxday marka wax weyn ay ahayd fursad aad u weyn ay ahayd marka meesha joognaa wax ku baranayna aadan uga fikireynay haddii wadanka waxaan jiri lahaayeen kuma dhibtoon lahayn waxbarashadan iyo waxaan grade kaas iyo waxaas oo kale dhibaato ugu ma qaadan lahayn marka waxa waay farxad weyn ay inoo tahay runtii guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ka dhalinyaro ahaan hadduu Ilaahay idmo in aan ka faa'iideysano cilmiga uu walaalkay Ustaad Siidow uu ku soo kordhin doono wadankan insha Allah taala waana ku faraxsanahay inuu ustaadka uu soo laabto. waxa noo soo bartay cilmiga maanta noo haayana waxa lambar 1 ka ah Ustaad Siidow khayr Allah ka siiyo. anaga jaamacadda Muqdisho ahaan wuxuu noo qabtay sanad kasta wuxuu noo qabtaa yaraan 3 seminar hadduna 2 noo qaban 3 seminar uu noo qabtaa oo la kulmaayo shaqaalaha kala duwan ee maktabadaha jaamacadda ilaa jaamacadda Muqdisho waxa ka shaqeyso 12 qof aan mas'uul u ahay 5 xarumood waaye oo kala duwan 5 maktabada ay ku yaalaan. waxa marka tababarada si systemkan ku shaqeynayna iyo howlaha dhan waxa naga caawiyo Ustaad Siidow waaye. waxaan xasuustaa Sacuudiga Riyadh aan isku aragnay inuu soo aad noo soo dhaweeyay oo runtii waxa la magaalada iyo maktabadaha iyo meesha noo soo wareejiyay. sidoo kale hadda oo aan safar ka imaaday Switzerland waxa waaye aan cid ka garanay oo cid igu xiray marka waa nin fiican waa ninka khayr la siiyo ninada ogiisa aad wax muhiim u yahay waaye. dabcan marka meesha tagnay si fiican noo soo dhaweeyay si aanan filin dabcan hotel loo kiriyay magaalada soo kala baray marka laantiis waxa waaye hinadookankaas laantiis xubin socon lahayn naqsadka waxa waaye ma hadcelinaynaa dabcan waxa is leeyahay majaalka oo soo bartayna majaal wadanka looga baahan yahay waaye. dhankooda xubnihii ka socday xarumaha waxbarashada ayaa xusay in dalku ku yar yihiin aqoon-yahanada aqoonta durugsan u leh hanaanka casriga ah ee maktabadaha iyo maareynta xogta, iyagoo tilmaamay inay rajeynayaan in aqoon-yahan Siidow uu wax weyn ka bedeli doono baahida weyn ee dhankaasi ka jirta. waxaan rabaa hadalkayga marka si sariic ah inaan u iraahdo wuxuu soo bartay isaga iyo inta yar ee hadda Soomaalida ay soo bartay la tilmaamay waxay soo barteen miftaaxa culumta mid walbo anaga naga mid ah waxaa jira qaar computer ku takhasusay, qaar education, qaar shariica, qaar law, wali kastaba laakiin miftaaxiisi oo miftaaxa u noqon lahaa waxa weeye waa cilmiga adduunka waa la kaydiyay kaydkii miftaaxeeda waa inaad haysataa. waxaan leeyahay Ilaahay cilmigaaga ha kuu barakeeyo. hadda markaad ku soo noqoto waa labana cusub oo maanta Soomaaliya u soo noqday dadka thaqaafada in la baro buugga lagu xiro ilaahu digital ha ahaada ama buug caadi ah waa muhiim aqliye u baahan tahay dowraad u baahan tahay anaga waa jira hadda isxilqaan baa jira sidoo hore lama aha laakiin wali ma dhowin marka la yiraahdo markaan baxnoon waxbarasho aadna dabcan funuun kala duwan iyo majaalaad kala duwan aadna marka majaalkii la wada aaday ama loo wada batay dhinacaan ahayn qofka inuu aado dabcan qof wax soo kordhinayo waaye. fan walbo la aado dabcan wax kordhintiisa iyo anfacaadiisa uu leeyahay haddana fanka ama dhinaca lagu yar yahay in maaragtay baaridiisa iyo raadintiisa iyo gudagalkiisa la sameeyo mudnaan iyo maqaam weyn ay maaragtay ummadda iyo dalka iyo dadkaba u wada leedahay. marka ustaadka aad ugu hambalyeynayna safarkaas dheer uu galay oo baajularkii iyo masarkii oo maaragtay dal qurba ku soo qaatay inkastoo meel barakeysan iska ahayd
ayadana dabcan waxay leedahay bogaadinteeda. ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay aqoon-yahan Siidow Xaaji Maye isagoo u mahad celiyay dhammaan intii soo qabanqaabisay munaasabadan iyo marti sharafta kale ee kasoo qayb gashay dhiirigelintiisa. wuxuu xusay in aqoonta uu soo bartay uu ugu adeegi doono bulshadiisa iyo dalkiisa, isagoo xoogga saari doona sidii loo casriyeyn lahaa hanaanka kaydinta iyo helidda macluumaadka ee dalka. waxaan sameeyay maaragtay wax la yiraahdo waxa la ismarsiyaa sanad la yiraahdo sanad taxdiiriya la ismarsiyaa sanad taxdiiriyada inta ku jiray waxaan ku dhex wareegay dhammaan jaamacadda oo dhowr iyo 20 kuliyad ay leedahay. kadib marka waxaan ka dhex arkay cilmigan la yiraahdo cilmi maktabaat wal macluumaat. kadib maktabadii aan galay waan akhriyay cilmigan iyo qaabkiisa iyo kulli wuxuu yahay. marka mushaawaraan sameeyay oo maaragtay istishaaro far badan sameeyay. فلله الحمد والشكر مركا وحال يقول لي رجلي إن علمي عن برتو الحمد لله مرحلة كواد مركا لما يكذب وحي سيان هذا ماجستير حدنا وحي يقول له المارة وحنكسين إنها مرحلة دكتوراه ولو مارة وقت كذا وديري هاي مركا وان كعذر دارتي وحنكهل هاي مارة متكمدة وده ماذا عرفته وقت كذا اسكت كويه إن شاء الله. munaasabada ayaa ku soo ilaatay jawi farxad iyo dhiirigelin mudan iyadoo dhammaan ka qaybgalayaashu ay u rajeeyeen aqoon-yahanka mustaqbal ifaya iyo inuu door muuqda ka qaato dib u dhiska aqooneed ee dalka.